dhibaatada ay leedahay dadku marka aanay isaqoonin xataa hadday yihiin laba qof oo nolosha wadaagaya waa sidan oo kale waxaa jiray nin xaasa nin iska xishood badan buu ahaa iskana ahludiina isagoo yarna reerkiisa laga kaxeeyey oo school boardna loo diray cadan iyo meelaha isagoo dhowr iyo 20 jira buu kusoo noqday carigii Soomaali buu u dhashay buu reerkoodii kusoo noqday reer iska yara ladan bay ahaayeen ganacsi baa loo dhiibay aad bay u baraadheen maaragtay reerkii businesskii buu sii ballaadhiyey maasha allah reer aad loo ixtiraamo oo loo yaqaanana way ahaayeen adigu markii adigu ilaa 26 meelaha soo gaadhay baa la yiri daweynaad guursataa gabdhaha nin aad ula hadla ma ahayn in iska xishood badan buu ahaa afkii buu kala yara qaaday maadaa wax gabadh la imanayaa la yidhi mise waa lagu guuriyaa waa lagu doonaa gabadh ii doonuu yidhi gabadh baa loo doonay ay ilmaadeer saddexaad meelaha yihiin inan yaroo qurux badanna oo markaa high school dhigataa inan wanaagsan oo iska miskiina buu ahaa inantii hadalka muu soo celin waa loo dhisay sanadkii ugu dambeeyay high schoolkay ku jirtay high schoolkeedii bay dhammaysatay iyadoo high schoolkii weli dhiganaysa bay uur yeelatay dad uun wada nool bay iska ahaayeenoo aqoon badan aan isu sii lahayn shaqadiisuu tagaa iyo businesska uu soo noqdaa gabadh shaqaalaabaa u joogta oo soo yaro gashaa wax walba dee usii diyaarsaa macawistiisa sariirta usii dul saartaa guriga uunsi baa lagu sii shidaa dee wax walba loo soo diyaariyaa cuntada laba cuntee dee sidii caadadu ahayd intay usoo dhigto bay iskaga noqotaa dee habeenkii uunbaa sariirta lagu kulmi jiray weliba iyadu bedroom kale lahaydoo markii ay ilmihii curad dhashayna qolkaasay inta badan iska seexan jirtay oo habeenka uu diyaar u yahay unbuu ku yidhahdaa caawa uunsi ii shid aqalka uunsi iigu sii shid code wordkooda ay ahayd taas habeenkaasunba iyaduna iyadoo dee iska cadarsanoo iska uunsisanaysa sii diyaarsasaayoo sariirta dhankeeday sidaa usoo fadhiisataa iyadoo jooqanoo hagoogan isma dhaqaajiso ilaa uu dabadeetna sheekadu siday sidii u ahayd oo dee uun maaragtay dadkaa uun dee iska wada nooloo dee ubadna isu dhalay oo iska kala xishooda had iyo jeer oo dee maaragtay rool serious ah kala leh ayuunbaa inankii waddan kale u aaday barnaamij meel baa laga soo casumay intuu sii socday ayuu dabadeetana diyaaradda wuxuu kusii daawanayay filin wuxuu sii daawanayay romantigahoo nin iyo naagis qaba oo laba caruura isu lehoo inanku markuu shaqada ka yimaado uu sidaa albaabka usoo furayo labada caruur iyo xaaskiisaba kusoo cararaano madaxa halkaa uu ka dhunkado gabadha oo labada caruura iyo iyaduba isku duubaano markiiba uu intuu kitchenka la soo galo cuntada la diyaariyo oo miiska la dhigo oo ay wada casheeyaano inta iyadu meydhanayso uu isaguna caruurta musqusha kale la galo oo sii seexiyo oo maaragtay intay maydhaan oo dee bijaamadooda iyo hawlahooda intuu u geliyo sheeko u akhriyo oo iyadna iyadoo bijaamadeedii gashan ay u timaado isagoo weli labadii caruurha sheekadii maaragtay sheekooyinkii u akhriyay oo
caruurtoodii intay habeen wanaagsan ku yidhaahdaan oo madaxa ka dhukadaan dabadeetana labadooduba ay gacanta isa sii qabsadaanoo fadhiga yaro tagaanoo halkaa yaro fadhiistaanoo cagaha isdhaafsadaanoo yaro daawadaan wararka iyo waxyaabahaasoo marna hoosta isa soo gashadaanoo soofaha isna xagga shishe uu ka xigo iyadna xagga suke oo sidaa sidii malgacad yar gebigeediba sidaa halkaa laabta usoo gashadayoo halkaa ay dhabanka isugu hayaan oo wax isla yaro daawanayaan marar waxay sameeyaan iyagoo lugaha isweydaarsadayoo isna uu maaragtay telefishinka janalada bedelayo iyadna ay buug akhrisanayso waxyaabahaasoo de just romantic couple haddana caruur lehoo dee saa isu daawanayo oo wada kaftamaya oo wada sheekaysanayo oo isbaacsanayo oo ninkii wuuba yaabay dad baa jira sidaa u nool muxubo iyo kalgacal baaba xaaskiisiibaa marba u sawiranta iyo sidaanay isu aqoon aanay aqoon saasaba isugu lahayn hawlahooda markay kala dhammaystaan iyadna intay iska maydhato qolka kale iska tagto isna uu sariirta isku ballaadhiyo muxub baaba gashayba ninkii iyo xiiso aan hore u hayn run ahaantiina mar dhexdaasa wuxuuba ka fikerayba inuu guursado gabar kale oo weliba dhowr odayoo ay aabbihii asxaab haayeen baa abroach gareeyo ku yidhi oo dee yaa dee oo dee waad badhaadhee dee maad labaysatid oo yaa nimanka adigoo kale ahi waxa weeyaan dee waajib baa saaran oo dee maaragtay bulshadu inuu dee maaragtay wax la qaybsadee dee markaasuu iska yara dhaga tiray dhowr jeer laakiin xoogaa waxaad moodaysay in dhowr jeer hamisoo yaro galay oo ka yaro fikiray tolow noloshanuun mar walba isku mid ka ahee same thing shaqada tag ka soo noqo miiska keligaa fadhiiso wax ku cun gudaha gal markaad gabadha u baahan tahay sii carbuuno wax kale oo dhadhan iyo xiisale baad moodaysa ayaamaha inuu ka yaro fikfikiray talo wax kale ma jiraan noloshu ma sidanunba guurku ma sidanunba habeenkii markuu filinkaasii daawaday wax badan baa noloshiisii iska bedelay xiisaa gabadhii u qabtay marba sidaasay ugu soo hilaacday xaaskiisii oo iyaduba bijaamadaas waa xidhan kartaaye wayba ku qurux badnaan lahayd yaa waaw wuuba sugi kari waayey toddobaadkii uu ku maqnaa magaaladii kale magaalo waddanka ka baxsan bay ahayd meeshii uu aadayo ilaa 7 saacadood diyaaraddu ay usii soconaysay 7 meelahaasuu ku maqnaa businesskiisii iyo hawlihiisii meeshuu tegay markuu dhammaystay ayuu raadiyey dukaan bijaamooyinkan saksiga ah ee dumarku xidhaan ee loonjareyga ah lagu iibiyo dukaankiibuu soo helay 3 sad buu uga soo qaaday gabadhiisii mar allaale markuu sidaa gurigii u yimi ayuu ku yidhi hadiyad baan kuu sidaa hadiyaddaas adiga iska leh oo waa maxay waxani markay furfurtay waa wax qurux badan oon doonaya inaad ii xidhato buu yidhi caawa habeenkii shaqadii maalintii markuu tegay wuuba sugi kari waayo intuu soo noqonayo oo isa sii diyaara buu yidhi adigoo gashan aan ku imaado waxay samaysay way sii gashatay oo markaasay diracna kasii dul gashatay
markuu ay aragtay inuu soo gelayo ayay soo carartay qolka soo gashay iyadoo weli dirci ka dul gashan suu soo socday boqolkii soo galay markaasay tiri xaaji dee cashadii baa ku taalee cashee markaasuu yidhi maya cashe ma rabee adaa caawa cashadayda ah adaan ku rabaaye kaale maradii meeday maxaa diraca kuu xidhay markaasay tiri dee maya waan gashanahaye intay yaro khajishay oo sariirta qarkeedii sidaa u fadhiistay markaasuu gacanta intuu u dhiibay gacantiisa oo kiciyey ayuu dircii ka bixiyey bijaamadii oo dheer oo qurux badan oo silka ayuu saa u eegay gabadhiisii waaw weli dhexdeedu gengiman tahay iyadoo 3 iyo 4 caruura maaqaan waxay u dhashay beautiful mabuu aragba iyadoo sidaas intaasoo sanadood bay isqabeen timaheedii oo masar ugu xidhan yahay buu masarkii markaasay ku qabsatay markaasuu yidhi maya xabiibi masarkii buu ka tuuray markaasuu saa ugu sii daayo markaas bahala timaaho ay saa u huwatay weligoodba muu arag iyagoo furan habeenkii arooskaa ugu dambeysay timihii uunsi ku shiday oo sidaa udgoonka iyo bukuurka ka soo waraya iyo cadarka iyo adduun gabadhiisuunbuu sidaa u daawaday wuuba ku muraaqoodayba ma sidan aad u eekayd jacayl hor lebaaba ninkii ku bilaabmay gacantuu qabsaday oo sariirtii bay isla koreen wuu un daawaday dee iyadii way khajilaysaa marba indhahay gacantiis ka saaraysaa gacanta intuu saa uga qabto unbu wejigeeda sidaa gacanta u maraya marba timaheeda marba sidaa faraha u kala dhexgeliyaa mar saa ugu soo dadaa mar isagu isku dadaa wax kaleba inay sameeyaan uma baahnayn saasunbuu sidii tabtii filinkii u daawanayay sariirtii saa intay ugu jiifsadeen buu halkaa laabta sidaa usoo gashado saa u qabsaday markaasay isku dulgameen عندما جعل تذسربا warkood kadaadejey waxay ugu daray markii aan dulimi tan dunida rabay iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo showraaxada macdayo durbagarayski furatayo sidaysay timihiin hanidhimadaysa mise waa dugsiisay dibnaha maysi saarta yaadooq ku weli jiray dadow maxaad ku talinay jacayl hor leh ayaa inankii iyo inantii u bilaabmay ninkii maba sugi karaba shaqada markuu ka yimaado suu u soo socdo ayuu isku duubaa gabadhiisiyo gacanta qabsadaayo caruurtiina ila waa laga hayaa wayna dad iska ladan oo haystee sariirtoodun bay tagaan saasun bay isu daawadaan qof cusub oo hadeer bartay un bay la noqotay markaasun bay dib isu barteen sheekadu shaxdaa maxaad jeceshahay maxaad ka heshaa maxaad ahayd where do you come from almost yeah
والله بالله الشيء كذا مران كشيكي إنن بايلا سو هادلي إلهي ووغيهاي وحو يغيري markaan ku dhageystay gabadhaydoon dhowr iyo 10 sanadood aan isqabnay ayaan oo aan ka maqnaa markaa magaalo kale aan ku maqan ana ismooday inaad iga hadlayso Fatxiya weligay kuma odhan I love you wadnahay farta ku hayn jirto waxay odhan jirtay mar walba talo miyaad guursanaysaa bay odhan jirtay markastaan magaalo kale business u aado xataa waxay igu tidhi buu yiri ma gabadh baa magaalo kale ku joogta dadana intaan teleefankii qaaday markii sheekadii aan dhamaystay buu yiri ayaan teleefon u diray waxaan ku yiri I love you adduunka adaan kuugu jecelahay you are my heart weligayna kula guursan maayo you never have to worry about that weligaa ka welwelin inaan qof kale kugu doorsado way yaabtay buu yiri waxay igu tiri miyaad dhimanaysaa filinkii ninkaasi daawaday baan anigii u noqday the moral of the story sheekada gabagabadeedu waxay tahay dadku hadday isbartaan oo isla sheekaystaan oo isla showraan maadaama inagu dad islaam aynu nahay oo dad badan oo aan sheekaysan oo isguursada ama la isu doonaa ay jiraan dad badanina ikhtiyaarkooda iyaga sanadka maanta isdoorto isguursada laakiin waxaan intimacy-ga la yiraahdaa is so important intimacy macnaheedu waxa weeyaan labada qof inay kali isku noqdaan oo isbartaan oo sheekaystaan oo aanay isu yeedhanuun marka maaragtay nimankan u yeedhanaya dumarku marka ay wax uga baahan yihiin waajibka it's more than a waajib it should be wax ka weyn waajib kaliya waajib xil wax ka weyn weeye waxa idin dhex yaala adigii xaaskaaga kali isku noqda isbarta isla sheekaysta asxaab noqda saaxiib noqda lamaane run ah oo nolosha isla kaashanaya qoys isla korinaya devoted miliqsiga waxa ugu wacan badan xaasaskooda ma yaqaanaan waxay gashiyo waxay gudo waxay jeceshiyo waxay necab tahay weligeed ma arag iyadoo maaragtay si diib ah oo dhab ah u faraxsan a wife shouldn't be shy gabadhu inay ninkeeda ka xishooto ma aha laakiin waxa looga baahan yahay isagu inuu ka sameeyo inaanay ka xishoon ixtiraam iyo xishoodku waa kala duwan yihiin xishood inay ku haysato inaad aabaheed tahay ama ay kaa baqayso how can you have an intimacy with someone aydan aqoonba isu lahayn aan ahayn habeenkaasun 15-20 minutes sariirta ku kulmaysaan waa arrin aad u qadhaadh barta xaasaskiina noloshu way idin hawl yaraanaysaa way idin macaanaanaysaa way idin qurux badnaanaysaa reer cusub aad igleeshaan iyo hawl cusub iyo kii horood daad ka qaadsiisaan waxaasoo dhan baa ka raysanaysaan please nimanka Soomaaliyeed nasta waa daalantiina walaalayaal nasta reer qurux badan iyo nolol qurux badan samaysta waajib kaliya ma aha waajibka ka saara xiiso farxad lamaane jacayl qushuuc muxubbo make your marriage waxaasoo dhan guurkiina waxaasoo dhan ka dhigta khayr iyo baraaran Virginia nabaday indhaha qalbiga kayg ma fogo indhaha qalbiga kayg ma fogo waxaan yaaraga